Somaliland waxay ku jirtaa wadamada ugu leerka qaalisan la dunida iyo deegaanada Soomaalida oo dhan markaad isku geyso Somaliland waxay safka hore ku jirtaa dalalka ugu leerka qaalisan leh ee korontadoodu ay tahay koronto aanay iska bixin karin shacabkeedu leerka Somaliland waxa shida shirkado bareefada Somaliland leerkii ay lahayd xukuumaddu iyo ahaa inuu qiimihiisu jabnaado ma jiro dawladnimada macnaheedu wuxuu weeye in shacabka cashuur bixiyaasha ay helaan adeegyada caafimaadka waxbarashada korontada jidadka iyo dhammaan baahiyaha aasaasiga haddii aanay dawladnimadu intaa bixin karinin macnaheedu siima samaynayo dhadhan weyn waxaana xil weyn ka saaran iyo mas'uuliyadi oo laga baahan yahay inay dawladdu ay adeeg leer bixiso oo jaban oo ay dadku bixin karaan ama in ganacsatada leerka shida guud ahaan Somaliland ka shida in lala xisaabtamo oo lagu kor joogteeyo qiimaha leerka waxaynu ognahay in shidaalkii jabay haddana qiimihii leerku halkii ugu sareysay uu taagay waxa soo noqonaysa cabasho dadka Somaliland ay ka cabanayaan leerka iyo korontada qaaliga nolosha bilaadanka korontadu sinaba uga maarin karto waxa ku xiran waxbarashadii caafimaadkii ganacsigii iyo dhammaan baahiyaha asaasiga ah dalkuna inuu helo leer jaban oo ay iska bixin karaan shacabku xilba ka saaran xukuumadda iyo dawladaba nolol suuro gali mayso haddii aan la helin leer jaban oo shacabku ay helaan oo aan ahayn kan maanta ee dhigmiirashada ah ee qaali kar laayeen ummadii Somaliland ee guri kastaba qaylada iyo cabashadu ay ka soo yeerayso ee maraya qiimaha aadka u sareeya leerkii dawladdu ganacsatadu gacanta ugu jira maxkamadaha cusbitaalada wasaaradaha iyo dhammaan hay'adaha dawladda oo dhan waxa u baxay leer bareefada waxaana laga qaadaa lacag dadka shacabka ana leerka u baxa qiimaha uu taagan yahay maanta reer Somaliland way ka dhareegsan waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda ummadda loo naxariisto ganacsatadana waxaan u soo jeedinaynaa in ummadda loo naxariisto oo leerka qiimahan uu maanta taagan yahay qiimo ay qaadi karaan reer Somaliland ma aha hoos loo dhigo sida leerarka dunida oo kale magaalooyinka ugu liitay ee ugu baahida badan waxa kamid ah gobolka Saaxil magaalada Berbera waa magaalo xeebeed leerkii dawladdu lahaa waxa la wareegay shirkado gaar ah leerka magaalada u baxa waxa uu taagan yahay qiimo aan qaadi karin dadka reer Berbera qofka kaliya ee guri ku nool ee u baxay aysi waxa laga yaabaa bishii lacag ka badan $250 ku soo dalaco waa lacag weyn oo la qaadi karin dalka Imaaraadka waxay noo keeneen leer solar leerkaasi waxaanu ka warwarsanay in isagana qiimihii hore kale lagu iibiyo leerkaasi waa inuu wax ka bedelaa nolosha gobolka Saaxil iyo reer Berbera waana inuu noqdaa leer ka jaban leerkii hore waliba waxaanu soo jeedinaynaa leerka inay dawladdu gacanta ku hayso maadaama ay dadka mas'uul ka tahay dawladdu oo guri kasta xaq loogu leeyahay in ay geliso dawladdu leer jaban oo dadku ay iska bixin karaan waxaanu u soo jeedinaynaa ganacsatada laftigooguna inay dib isugu noqdaan in dadka loo naxariisto in la maqlo leerkana qiimaha maanta uu taagan yahay ma aha qiimo ay iska bixin karayaan ummadda reer Somaliland waa qiimo ku culus oo qaali ku ah oo aanay qaadi karin waxaanu soo jeedinaynaa xukuumaddana in si degdeg ah cabashooyinka dadkana looga jawaabo Somalilandna xaq waxa loogu leeyahay xukuumadda cashuurta inaga qaada in ay soo celiso oo cashuurteenu ay ka jawaabto baahiyaheena asaasiga iyo adeegyada ay ummaddu u baahan tahay ee ugu horeeya caafimaadka waxbarashada korontada jidadka iyo dhammaan baahiyaha ay dawladdu qabato dalkani ma aha dal dawladnimadiisu ay dadku dareemi karayaan maadaama aanay dawladdu hal adeeg oo soo noqonaya aanu jirin dadka cashuur kuma baaqato hadiya habeen cashuurta waa la bixiya cashuurta ummaddu waa inay ku soo noqotaa noloshooda oo wax ka bedeshaa baahiyahooga oo ay arkaan
iyada oo adeega aad baa u mahadsan